بابا قنداريا لادر كوينا أحمد رشيد أو قبل باسو الدمي وحليرنك أورك الضبانة إلهي با أركنك إيش الضبانة آدنا أرك حالة دون تنونقن ويدافتي قبل باس با الدمي هو يدن بو أويسا أو نيروبي كنو لما تشردوتو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل توعنا وناكسن أصحابتي إذا عاشق حرتي إذا عاشق هذه بدين سلام يميل قصة جوكتان وهناك عفتح بوري برنامج كيف تمين تحقيقك حق ودرك وحن كاعصن يا برنامج كذا دوك سو قرنا سيشير جلست channel ka subscribe saarto furagan blog soo noqdo qofka ugu horeeya ee la socda iftiiminta xaqooyinka arrimaha bulshada iyo xaq udirnimada waa walaalkeen maxamed amiin shiku babu oo baba gandariya laadarkii weynaa waxaan filmaanta hindiga ka daawan jirnay iyadoo la yiraahdo baba gandariya baadiisu weeye waxa weey markuu jidka maraya hal la keeno lacagi oo soo afjarantay maxamed amiin iyo sharma boy oo shimbir marag u noqday dadka ku nool Nairobi iyo dhibaatooyinku ninkaasi musiibooyinku u geystay baba gandariya laadarkii weynaa oo lugaha qabsaday maxamed amiin hooyadii iyo maxamed amiin oo video soo duubay kana hadlaya ballan ku galay ahdi inaan hooyo dambe ooyin inaan qof dambe oo dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo baahan mid duruuf hayso iyo mid aan duruuf haynba dadka Nairobi ku nool inaan qof dambe oo Soomaaliya inta dhiigiisa la daadiyo aan waxa weey deer hurdin ila daawada soo dhawaada siina sheer garaya حاضر مالك استوى وجهه برنامج هاشر قريب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سومالنا اللي عارك جبته وأنا سلامي إحنا ولدي سمرنا سلامك سوق ذي كشكيلات وأولا ضعني شكوبابا إحنا أمين يحيى أصحابي أنت قلبي يرجع له عن الله وعفمات قضاء ويلكين وعفمات قضاء وطن وحنا وين شريعة وهكذا نسوي في نستي هاي الصوماليات أما وين ولكن الصوماليات ومتقنا الظلم يعقبوا فدرا نقولها إن شاء الله تسوية ما تبي نسوي أفجرنتي وربحا يدين بحي وحي قلودي مصباح قلي قبر بان هوسجرا وحي كهري ويدي واكو هيستا عقوبة بني آدنك إيش بني آدنك الماذا هويوينك الصوماليات ee dadku saasay u ooyaan sida u ooyay waxay idin tahay cuquubadaas inay meel jirtay ma waxay idin tahay inta gabar Soomaaliyeed ooyeysay hooyo Soomaaliyeed ooyeysay qof dhalinyaro ah oo Soomaaliya ka soo cararay oo al-shabaab ka soo cararay oo qaraxyo ka soo cararay oo gaajo soo iriday oo waalidkii la soo baxsaday oo shiri waalidkii yaan oo ninkii mahana ama al-shabaab ka galay oo meel kale ka qaban ama aanu ka tahriimin la soo baxsaday Nairobi la timi oo naftu haysay oo maqaaxiyar eegay shaah ugu shubaysay shaah sidii alyoomkiisa uga soo saarto oo waxa weeye balwad bartay oo dhalinyaro waxa la 20 jir intuu geed ka boodo tala ka booda intuu laan ka boodo ayuu tala ka booda ilmuhu markuu 16 sano ilaa 20 sano inta u dhaxaysa markuu jiro waa xilligu uu dhibka badan yahay ninkani waa laba alif le baba gandariya tuuga weyn waa laba alif le isagoo laba alif la buu wuxuu dabcan inuu ku dalaco dhiiga shacabka Soomaaliyeed markaasuu hagar la'aan ila wadana dawlad lahayn ila wadana culimadoodu hadlay ila wadana ciidamada u naxayn ila waa ummad iyo dhalinyaro Soomaaliyeed la suqaarinayo waxa weeye sid hagar la'aan buu leeyahay inta maxaa sii dheer gabdhaha Soomaaliyeed ee tii allaale iyo tii uu damco baba gandariya laba mid uu soo gasho inay baxsato la feed la cararto iyo inay wax allaali wuxuu doonayo samayso waxa kaaga daro inta si dheer baada baba gandariya baadis waa loo rureeyay soo rureeyay isku soo dara waa baba waagaas waa haduu bari ceel hadii la qodayo cashuur buu ka qaata oo meherad hadii la furayo cashuur buu ka qaata inta dawladdu ka qaatay in ka badan buu isagu ku leeyahay lacagta uu ururinayo waxa uu ururiyay niman tuuga ah oo baba gandariya u shaqeeya lacagtaas uu ururinayo ayuu wuxuu ku laalushaa sawaaxiliga ku kaayada iyo qolada fuufuuda cunta ee isaga ka sareysa ayuu ku laalushaa dadkeena wad garanaysan waa leeta besa wewe kibanda ma jirto leeta besa wewe bariyada waa ilmo besa bal yiraahdaaba hadaad ba hadasho waan lacag bixisa ayuu ku laalushi jiray baba gandariya maxkamad buu saarayay qorigana waa ku bishaaraysto
والله كوب شاريستا بابا جنداريا ولا دقني صومالي قيب وين باد كقادتي بابا جنداريا إن ميلا صاروا محكمة بالا صاري قورينا ولا قدقي أول بلد حلفي عن ما يسأل اللي بألف لها كود العبو سلاديك ومضى الصوماليين لبدي ألفنا ولا حيوبني وحالدين بلنقادنا بابا جنداريا إن أنا هو يضم بكويسين قفلي بنا مقالة نروب ولا سميهاي سحق أنا ولا وذا جوجي دونا أنت الصوت دولنا إن شاء الله ديجي أيدين تعطي قوشوا حقنا حان لا يعي صوماليا يمال بأجبتان دعاء وعدلكينا هلو دعوي محمد آمون شكوبابا وديق وشخصي قرى ديقي سؤدادي أو نفتي يا بيما وقلي إن كوا كتن بيا بدبادا وروح اللو يعد سيدا وهذا شاه وعلو يعد نفتو بيميسا وحلو نفتي هورا لواي لكن المدة الصومالية مالك استبها جوين واداد أنجيسي لغا واين عسكرك لغا واين أبوانك لغا واين شخصي وناكس لغا واين ودنو وانو كدمان شيخ في عالغيهو وحاس عجيبة علماء الصومالية يا وين وانيك اكتاد احترام وين كل هاي وارنتي دوانيني قشو وهوس ودميسو إنا لله وإنا إليه راجعون وهلكا نلوغا سو دحاي وهلكا كبعنay وهلكا aanu ka hognay waa meesha wuxuu yiri kitaabka mid baa u sida wadaad koobiya turjuma wuxuu kidfayaa sharciga dadkana waa u ka bashiiq bisana waa ka dib weyn waxaan la yaabay oo buuxisay u noqotay oo dhagihiis la kay tageen oo aan la yaabay culimo Soomaaliyeed oo aniga agteeda ixtiraam ku lahayd ixtiraam anigu runta waa la isugu dhiijinayaa baan ku bun wallaan la isaga reebinay biliyo tol عبان وهبل أوران ما يصدر مقدار سؤال كذا علماء الصومالية وأكتد احترام كل هاي وأنا أرجع واتذكي ده أي بهاشوا بيدكتي وهذا الكائن ده الصومالي دكتة تاجسو أي أرد طبعاً هو صودا مية يعني هاي شو الدين بالله تشهد بريدين بهور دوجا قوت تشهد مركزات بكيلو يدينه ولا قوت تشهد يمشي لقوت تشهد يعني هاي شو علماء الصومالية ده وين أصلاً وهذا أيها طبعاً هوس ودميان أخذتي هوس أو أتشيدي واحد المية الصومالية دو سيدي تونشيرة لحية تونشير كاتشيسن وأن فير اللهين وأن نفقة هيسن وأن دولة هيسن وأن عدنا كان ترولين وعدو وحسين وكاتش دي شيء ساينتو بابا جنداريا وقفتو بم 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 مرسو ويقعد ما توي ويمكن كسيكو ويقعد ما تميت كلاش سواحيلي كلا وكان ميت تارر لك مرسو غم Soomaali weyn saas u daawanayso waa la wada daawanaya waan ku markaas ku raaxaysanaya 10 xabo 10 ku dhufanayo 16 jir aan feero lahayn 16 jir aan feero lahayn buu 10 xabo ku dhuftay mid kale adii sheegay dad baan arkay waxay lahayd boodariyow ma super powerkii iyo nimankii hooyeenka tooreeda galin jiray iyo nimankii dadka leen jiray baad u doodaysaa maya qaada cudurada cidna u doodi mayso laakiin wadamadan aan joognay Yurub iyo Mareykan waxaa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo direction oo iskuulkoodu bilaash yahay waxbarashadoodu bilaash tahay oo caafimaadkoodu bilaash yahay oo wax lacag la siiyo oo guryo fiican degan oo qabow iyo gaajo toon ahayn haddana gangs noqday oo wada toorreysita oo bastoordeysita oo xabsiyada ku jira wali miyaad maqasheen kuwa gaalada ah ayaa 18 jir 19 jir madaxa xabad kala dhacay miyaad maqasheen ma jirto si kasta loo maareyn karay si kasta haddii saddexda waaweyn ee super powerka la laayo inuu ninkani hadda isaga super powerkii caadi ah baba gandariya baad u qaadaan ku shalay laha waa leynaya ayuu maanta ku shaqaystaa saddexda ugu waaweyn ama labada ugu waaweyn ee tuugada haddii la dilo kuwa yaryar inta la qabto oo asxaabsiga la geeyo ayaa islaam walba rifeerto loo qori lahaa iyo oday walba sida ugu dhaqsaha badan muddo 2 usbuuc baad haysataa wiilkaaga laba mid soo gal ama ticketkiisa soo diyaari muqdisho ka tuurayna iyo meeshu ka yimi iyo hargeysa boosame wada family ka yimi ayaa loo diri ama waxa soo diyaarinaysa sanad boarding baa la gelinayaa sanadka lacagtiisa baad shubaysaa يا سيدي تومشير والي تومشير بالورد برتي قاد برتي سيار برتي خمر برتي دروغه برتي او توريسيتا او دد بارانيا si kasta loo maarin karay
والد قف والبنا والد كي لعكتها ممكن لها ما تقدر بحلها waxaa mucjisa oo laga sheekay wiilba iska daba galay waa bedelayaa wiilba baa ka dareeyay ninka waa hormaray waa dilay hooyadiisa tigid u shatay wiilkii oo baxsad oo maalinta daba qabtay wuxuu yiri walaalo wadanka waa kaaga tagay tigidkayna waa kane maxay iga rabtaa saasuu garabka soo qabtay waa baa ka daariya dam ashhadu ku dhufta ashhadu an la ilaha illa allah markaas gabadh wadada marsa waxay tiri waa shahaadanaya ka daa maqsuud waa gaal meeshuu dhigay إسلام